Your participation here is more than symbolic. kasoo qaybgalkiinu wuxuu astaan buuxda u yahay aqoonsiga isa soo taraya ee qaran ku dhiirraday nabad dowladnimo dimuqraadi ah iyo xasilooni mandaqada u adeegaysa iyadoo gobolku yahay mid xasarado badan ay ka higleeyihiin World's most complex regions. muddo ka badan 30 sano For 3 decades, Somaliland has waxay si quietly degan uga gudubtay carqalado badan oo liddi ku ahaa the odds. inkastoo aanay aqoonsi caalami ah helin With no formal recognition, hase ahaatee ay heshay taageero dibadeed oo xadidan we have built haddana waxaanu dhisnay hay-ado dimuqraadi ah waxaanu xejinay ammaanka xeebaha dherarkoodu yahay 850 kilomitir oo istaraatiiji ah a strategic coastline and conducted waxaanu qabanay doorashooyin nabadeed oo isdaba joog ah iyadoo gobolka ay dhibaatooyin ka jiraan in a region marked by fragility. Somaliland has become Somaliland waxay tusaale u noqotay isku filaanshaha iyo xasiloonida stability. tusaale ahaan As just one example, 5 bilood gudahood tan iyo markii xilka aan qabtay waxaanu ku guulaysanay inaanu abaabulka saar ku samayno oo ciidanka qaranka aanu ku darno ilaa 6,000 oo maleeshiya beeleed ah more than 6,000 clan militia iyadoo aanay jirin cid naga caawisay without the assistance of no one, midowga Afrika nagama caawin neither AU nor United Nations qaramada midoobeyna nagama nor caawin United States Ingiriiska nor Great Britain nor France. xataa Faransiiska iyo baananka caalamiga ah midkoodna shaqo kuma darsan arrintaasi waxaanu abaabulka saar iyo qaramayn ku sameynay Demobilized 300 oo baabuurtii xamuulka ahayd 300 transport units, including 160 technical. oo ay ku jiraan 100 gaadiidka dagaalka gaashaaman ee loo yaqaan technicada As part of peace initiative in the Eastern Seoul region, iyadoo ay qayb ka tahay xal u helista xaaladda nabadeed ee bariga Sool waxaanu maleeshiyaadkii aagaasi ka dagaalamayay loo tababarayaa ciidan qaran into the National Army. Nairobi We have not come to Nairobi today umaanu iman bariyo with a begging bowl. inaanu shilimaad cid We are not weydiisano looking for handouts. mana nihin dad gacanta hoorsanaya We are here to build genuine partnership. waxaanu halkan u nimi inaanu dhisnay iskaashi dhaba oo wax ku ool ah kaasi oo lala yeelanayo dowlado maalgeliyayaal iyo hay-ado garanaya The value of mutual benefit, qiimaha iskaashiga dheelitiran local ownership, lahaansho maxalli ah and shared success. iyo guul wada jira himilada horumarineed ee Somaliland Somaliland development vision, Mudnaanta. our priorities, our path. iyo dariiqa aanu dooranay Somaliland developed a model qaabka horumarineed ee Somaliland waxa uu ku dhisan yahay in 4 national priorities, 4 tiir oo mudnaan weyn qaranka u leh all of which kuwaas oo dhammaantood u diyaara strategic investment, maalgelin istaraatiiji ah iyo iskaashi livestock, xoolaha lafdhabarta dhaqaalaha the iyo backbone of our nation. Livestock accounts for up to 60% xooluhu waxay dakhliga dalka ka yihiin ilaa 60% with proper veterinary haddii systems, la helo nidaamyo wacan oo caafimaadka xoolaha lagu hagaajiyo warshado casri oo lagu qolo xoolaha shahaadooyin dhoofineed oo sax ah iyo ilaalinta dhul daaqsimeedka beyond the Gulf market to become a xoolahaanu pillar. iibgeynaa waxay gaari karaan meelo ka durugsan suuqyada khaliijka carabta We invite investors waxaanu u furanahay maalgashadayaasha iyo khubarada doonaya inay naga caawiyaan resilient value chains, dhisidda silsilad qiimo leh agriculture, beeraha from survival laga bilaabo soo saarista quutal daruuriga ilaa iyo wax soo saar ganacsi geli kara beeraleyda Somaliland waxay la kulmaan drought abaaro soo noqnoqday barriers, iyo caqabado ka taagan suuq geynta but they hase also ahaatee arrimaha beeraha ee Somaliland untapped potential. waa khayraad dihin oo aan la taaban Collaboration, waxaan raadinaynaa iskaashi ku saabsan hirgelinta hababka casriga ah ee waraabka beerista dalagga u adkaysta cimilada kaydinta and agro-processing. iyo farsamaynta Somaliland does not Somaliland waxay doonaysaa quudka ay soo saarto inaanu kaligeed ku koobnaanin be an agro-business hub balse for the aanu noqono whole xarunta ganacsi ee beeraha geeska Afrika fishing, kalluumaysiga a blue economy dhaqaalaha badda laga abuuray loo yaqaan blue economy kaasi oo ah mid aan laga faa'iideysan 150 kilometers coastline, xeebaha Somaliland rich waxay hodan in ku marine yihiin resource. khayraadka badeed yet less than 10% balse in ka yar 10% ayaa laga faa'iideystaa haddii la helo maalgashi ku saabsan investment in cold chains, hannaanka qaboojiyeyaasha processing facilities, warshadaha kalluunka fisheries management maareynta habka kalluumaysiga casriga ah can unlock iyo hagaajinta badbaadada badda
This is not only an economic opportunity, mana aha fursad dhaqaale oo keliya, waa chance lagu dhisayo dhaqaalaha badda ka yimaada pure regional blue oo economy, gobolka oo dhan anfici kara, renewable energy, tamarta la cusboonaysiin karo, our leapfrog opportunity. fursad aan ku horumari karno. Somaliland has an abundant sunshine and wind. Somaliland waxay leedahay cadceed iyo dabaylo xooggan. Waxaanu diyaar u nahay inaan la shaqeyno cid kasta oo danaynaysa in la ballaariyo tamarta qorraxda iyo dabaysha laga dhaliyo, taasi oo loogu talagalay bulshada ku nool mandaqadaha aan ku xidhnayn shabakadaha korontada, in la dhiso shabakado koronto oo kooban lana horumariyo silsiladaha maxalliga ah ee tiknoolajiyadda tamarta cusboonaata. Himiladayadu waa in qof kasta oo Somaliland jooga uu helo koronto nadiif oo jaban muddo 10 sano gudahood ah. I'm grateful to the World Bank. Waxaan u mahadnaqayaa Banka Adduunka oo $50 milyan ku maalgeliyay tamarta Somaliland, taasoo 20 milyan oo kamid ah lagu maalgelin doono korontada magaalada xeebta ku taalla ee Berbera. 20 million in Berbera city port. Dawladdu waxay amartay in qiimaha korontada magaalada Berbera aan la dhaafin karin wax ka badan 20 senti marka ay hirgasho maalgelinta Bangiga Adduunku. taasina waxaa keentay maadaama korontadu ay tahay mid qaali ah gudaha magaalada Berbera iyo Somaliland, taasina ay u daran tahay oo aanay soo jiidanaynin maalgashadayaasha dibadda. sidaas awgeedna loo baahan yahay tamar jaban maadaama ay tahay tamartu mid qaali ah gudaha Somaliland. Electricity is very expensive in Somaliland, and the investors are not coming to Somaliland with a very expensive electricity. xasiloonida siyaasadeed iyo muhiimadda gobolka. Political stability and regional significance. waxaanu ku naaloonaynaa xukun leh sharciyad siyaasadeed. waxaanu qabanaa doorashooyin nabdoon. We conduct credible elections. waxaanu ilaalinaa kala dambeynta. We remain public order. waxaanu leenahay hay-ado dowladeed oo xooggan civil society iyo bulsho rayid ah oo firfircoon. Somaliland stands out. Somaliland dhidibada ayay aasatay iyadoo Somaliland ay ku taalo mandaqad la baaxadagaysa nabadgelyo darro. But because sababtaasina ma aha oo kaliya inaanu ku joogno waxna la siiyay oo kaliya, balse Somaliland waxay ku sii jirtaa oo ay ku taagan tahay nafhurka iyo dulqaad ku wada noolaanshaha iyo adkaysiga ay reer Somaliland muujiyeen. We police our coasts. waxaanu ilaashanaa xeebahayaga. The regional fight against terrorism. waxaanu adduunyada gacan ka siinaa oo aanu qayb ka nahay la dagaalanka argagixisada, burcadbadeeda, ka ganacsiga hubka iyo tahriibka. But we do this. balse arrimahaasi oo dhan waxaanu ka shaqaynaa annagoo aan haysanin tamar ku filan, isla markaasina aqoonsi la'aantu ay nagala maqan tahay awoodihii iyo arrimihii muhiimka ahaa ee aanu ku tamarin lahayn si aanu u sii wadno dadaalkaasi. Without the privileges that come with recognition. sidaasi darteed waxaan si cad ugu sheegayaa beesha caalamka. So I say clearly to the international community, nala macaamila. engage with us, not as an extension of others, annagoo ah qaran madax bannaan oo aan cid kale daba fadhiyin, but a sovereign actor in our own right. una diyaarsan inuu ka shaqeeyo When that is ready, yoolalka ama ujeedooyinka la wadaago on shared objectives of peace, ee ku aadan nabadda, prosperity, barwaaqada and partnership. iyo iskaashiga. We want investment, waxaanu doonaynaa maalgelin, trade, ganacsi and knowledgeable transfer. iyo isdhaafsi We aqooneed. want collaboration in education, waxaanu doonaynaa iskaashi dhinaca caafimaadka iyo tacliinta asaasiga and ah, above all, we want balse partnerships ta ugu muhiimsan waxay tahay that respect our identity, iskaashi ixtiraama align with our development vision, aqoonsi raadintayada, lana jaan qaada himiladayada horumarineed, isla markaasina leh saameyn muuqata. and deliver impact. fursadda kulankeennu This is a moment of choice. laba arrimood ayay midkood noqon doontaa. Will this be yet another meeting oo waxay noqon doontaa of good intention, kulan kale oo niyad wanaag xambaarsan oo kaliya, or will it mark mise waxay noqon doontaa the beginning of a new era? bilowga xilli cusub, kaasi oo keeni kara Where Somaliland's in tacabka iyo achievements guulaha Somaliland are matched by international support ay la jaan qaadaan taageero caalamiya oo dhab ah, that's meaningful wax ku ool ah oo natiijo keenta. and focused. sidaasi waxaa yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo wakiilada caalamka kula kulmay magaalada Nairobi.